sheekh maxamed siciid saaweer imaamka masjidka huda ee bartamaha magaalada boorama ayaa khudbadii jimcaha ee maanta waxa uu bulshada islaamka ee Soomaaliyeed xasuusiyay in bisha dhalashada nabigeena ee Rabiicul Awwal ay dadku ay ka sheekeeyaan taariikhda rasuulkeena subnaan naxariis iyo nabadgelyo oo korkiisa ha ahaatee waxaana uu bulshada ugu baaqay in wacyiga taariikhda nabiga kor loo qaado war bisha ku jirna Rabiicul Awwal wa bisha nabigeena dhashay Kaleey salaatu wasalaam waxaan isku boorinaynaa oo isku xasuusinaynaa aan ka sheekaynaa nabigeena Kaleey salaatu wasalaam dhalinyarta waxaan leenahay war wax badan baa xoog baad leedihiin wax badan baa wad qabataane war bal hada kulli waniga wada joogay bisha wax ilaahay loogu dhawaado nabi maxamed in laga sheekeeyo oo internetka gal oo taariikhdiisa ku jirtay ka soo saar oo wax isweydiiyo oo waa in nabigeena maxaa ka sheekeynaa Kaleey salaatu wasalaam waqti oo dadka u sheegnoon guriyaha u sheegnoon dhalinyarta u sheegnoon meel walba in laga sheekeeyo si maxabada qalbigeena ay u gasho ilaa waxa la yiraahdaa qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'una yuhibbukum allah ilaahi baydi haddaad ilaahi jeceshihiin nabi maxamed wuxuu yiraahdaa aniga soo raac ilaahi baydi jeclaanay ninka ilaahi jeceli waa inuu nabi maxamed raaco Kaleey salaatu wasalaam kuntum tuhibbuna allaha haddaad ilaahi jeceshiin buu ilaahi yiri fattabi'uni soo raacade yuhibbukum allah ilaahi baydi jeclaanay marka ilaahay jecelahay nabi maxamed baan raacay Kaleey salaatu wasalaam waqti way soo ilaahay noo soo diray miyaan aragnay isaga la noo soo diray bashar ah oo waxyi kitaab la noogu soo dhiibay kitaabkii baa ina dhex yaala oo halka inoo yaala ilaahay marka waxa weyn risaladaas inoo soo diray isagu inoogu soo dhiibay war isaga wayna raacno ilaahay baa raali inaga noqonay waqti war bishaas aan uga sheekayna muxuu ahaa ubadkeena dhalashada nabiga uga sheekayna Kaleey salaatu wasalaam war waxa kale oo ka laga sheekayo war xisbiyada boo ka laga sheekeeyay guriyaha la geeyay looga sheekeeyo xisbi hebel baa asaas ah maanta xisbigii baa sida ah calaka kuba wata waa xisbiga hebel baa wata calanay wad barteen waa la nagu waday de gurigeena inaan uga sheekeeyay soo maaha wani walba dadka soo fadhiisato islaantii carruurta uga sheekeysay nabi maxamed dagaalada caawa ka sheekeynay wad carruurta taada nabi maxamed isku buuha waa muhammad ayo abdullaahi abdul muttalib haye kalad weydiiso aruutiisu imsay ahayd xaaskiisu nabiga hooyadii maxay tumay ahayd malakada waxna waa taariikh laga sheekeeyo soo naga wax kale ka sheekeynayna ilaa shibriicir ku jira jiriq abtirsinta marka la wado de waxaan hooyo bayna bartay Soomaa kolka la wado shibriicir ku jira jiriq horta ma la oran jirin waradu shibriicir ku jira jiriq waxa la jiray meel bay dhaafilaaday abtirsinta baa la jiray oo meel bay gidar ka gaaraysaa baash diinta inoo sheegine hooyadu ba ku yar sheegtay reebel baa tahay aabana ku sheegay waliba dumarku soo kala xariifsan bi ilmaha way baraan abtiye muxuu reerkooda abtirsinta marka ku dhaka qabta nabi maxamed korka qabr maxay noo diiday oo islaantu sheegto de maxamed baa ma dhaafinaysa yadba yaa sheegay qabiyaalad baan abtirsinta ku wada xiftinay reebel nin abtirsintiisa garan miyuu jiraan inteena meesha fadhida war miyuu jiraan ma kitaab bay ku talaad ka akhrideen waa wax dusha laga hayaa xitaa kuwii dhintay baan annaga hayro geesiyal bay hayeen ku dhintay laga sheegay kaas odagaas annagu haayo hebel buu haayo dadku la jiro geesi buu haayo subhanallah doqon buu hama jirto kuwii dadka leena wala sheeganaya aaway ila nabi maxamed geesi inuu haa oo Hamza mujaahid aha Abbas oo adeerkii aha oo ragaasi ay mujaahidiin ahaayeen maxaa loo inaan barno Soomaa kuwa kubadda ciyaarada waa la yaqaanaa dadku waxa garanaysa marka in amaanadii ay baabaaday waagi hore ninka baadiye markuu arko safarka wadada la maray wadada wax ku dhici jireen hadduu arko wax ku dhac wadada ku dhaca la arko waa la yaboohin jiray safar ba halka maran oo jiray safarkaas oo ka dhaca la oran jiray hadduu xitaa kildhi ka dhaco safarkaas la oran jiray kildhi ba ka dhaca waa la siin jiray maanta masaajidka bartankiisa hadduu axbad mobilhin aad ku ilowdo oo soo noqoto saad ku heshaa way yartahay Soomaa aawayda islaamnimadeena mataasa dhaqankeenu makaasa dhaqanku qofku waa inuu noqdo qof aamin ah oo muru'a qof sharaf leh muru'a muru'adu waa sharaf waa qof diintiisa xumaanta ka celiso أحمد ريعيل تري ورباهين تي SBC بورما